وبركاته أصحابتنا كسو دوادا channel كينا فرحية بلان كوكين وولاشين فرحية بلان أصحابتا قاليقا اسكو سو نقد وناكسان مالمها وإذن كان مشغولي بيسي بانها مالمها انبا إقرار لأهادا maanta anoo weli biisigu ku jira ayaan runtii ogaaday arin aad iyo aad aan uga naxay arintaas oo aan weliba waqti dambe ogaaday sababta waxa weeyaan ilaa shalay inaan khad ku jirin maadaama aan biisi ahaa xalay hal mar baan khad soo galay markaasna WhatsApp le fiirfiiriyay YouTube iyo wax ka socdaba maanan ka warhaynin runtii maanta aad iyo aad baan shucuurteedu ka cadsantay aad baan uga naxay falka ku dhacay walaalkeen Asad Xaajiyow والله آدي آد بان ولا على الحماضي أرنكاس آدي آد بان وقلنا Soomaaliya cadabtinimada inta la eg maxay tahay wiil yar oo walaalkiin oo dhalinyaro ah oo shalay xitaa la dhibaateeyay maantana waxa weeyaan bulshada muraayadu aha in mar kale la dhibaateeyo wallahi aad baan arrinka uga xumaaday waana wax laga xumaado weeyaan waxaad ogtihiin ba asxaabta laga yaabo inaad wada ogtihiin walaalkeen Asad Xaajiyow in laga jabsaday channelkii lagala wareegay channelkiisa oo runtii heer sare marayay 100 iyo wamaasada subscribe marayay 200,000 u socday oo runtii ahayd meeshii la rabay in la sii garbiyo la sii dhiirigeliyo la sii gacan qabto ayaa dib loo celiyay arrinkaas arrin laga xumaado way aad baan uga murugooday horta Asad Xaajiyow waa kuma Asad Xaajiyow saa wada taqaaneenba waa wiil dhalinyaro ah runtii asagoo daayir dhibaato loo geystay taasoo sababtay inuu mataqaana laxaadkiisa uu ku waayo ka bacdi dad badan oo waxa jira dagaaladii Soomaaliyeed iyo dibkii ka dhacay wadankeena ay wada naafeeyeen ay wada dhibaato ay wada geysteen oo noloshii ka niyad jabay ka raja dhigay yani inay dib ay noloshoodii iyo mustaqbalkoodii iyo hadafkoodii ay u yagleelaan ka niyad jabay wuxuu role model u ahaa dhiirigeliye u ahaa laf dhabar u ahaa dhalinyaradeena dhibaatooyinka uu ka soo gaaray dalkeena ay ka soo gaareen iyo colaadihii wadankeena 30 sano u dambeeyay ka socday dhalinyaradii ay dhibaatooyinku ka soo gaareen iyo dadkii waaweynaaba runtii wuxuu ahaa dhiirigeliye role model qof hankoodii in badan oo dadka kamid ah dib u yagleelay hankoodii inaysan isdhaginin ina iyagoo waxa weeyaan shalay tabartay lahaayeen aysan lahayn ay hadafkoodii ka miro dhalin karaan ay horay u socon karaan wuxuu ahaa qof arinta inoogu taagan wuxuu ahaa qof ama uu yahayba qof bulshada laf dhabar u hadla dadka naafada u hadla dhiirigeliya dadkeena kale dhiirigeliya يعني aniga wax badan waxaan ka qaatay oo fikir Asad Xaajiyow runtii channelkiisa video soo dhacay ma dhaafo hadduu xitaa waqtigu soo dhacay idhaafo khasab waxaan ahaan jiray qof ka daba tagta oo soo daawata sababtu waxa weeyaan mar walba wiilkaas uu dhiirigelin jiray dhalinyarada Soomaaliyeed ayuu dhiirigelin jiray weligay ma arkin asagoo qof wax ka sheegayo weligay ma arkin asagoo qof ku dhagan weligay ma arkin laba qof oo isdagaalsan asagoo la safan weligay ma arkin arrin dhiirigelin iyo mahad celin ka badan asagoo ka hadlaaya muxuu ku kasbaday maanta in dibka loo geysto oo walaalkeen aan niyad jabino shalay ayaa la niyad jabiyo asagoo dhalinyaro soo kacaysa oo qurux badan ayaa dib loo geystay mar kale ayuu uu karti u yeeshay inuu hamigiisii uu sii wado oo waliba annagii uu dib noo anfaco Soomaalidii shalay dibka u geysatay uu maanta uu yahay macaani public figure uu yahay public speaker uu yahay uu dhiirigelinayay in haddana dib labaad loola kaco runtii arrin laga xumaado weeyaan walaalkay Asad Xaajiyow waxaan leeyahay walaal wax walba way dhacaan wax kasteena adduunka waa la fishaa waxaad filanay iyo waxa filanaysidba waa kugu iimaanayaan never give up waliga hays dhiibin ogow shalay dadkii Soomaaliyeed ee walaalaha ahaa ee garbahaga taagnaa ee 100,000 iyo ka badan oo subscribe ku gaarsiiyay waxa ogaataa maanta inay nool yihiin ay ku garab taagan yihiin insha Allah 100,000 waxa laga yaabaa bilo iyo sanad inaan ku gaadhay waxaan rajaynayaa bil gudaheed inaad 100,000 ku gaadhid insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo saasaan rajaynaya ha isdiibanayaan leeyahay walaalkay hore u soco wax walbana nolosha waa laga fishaa waliga haniyad jabin inta Soomaali ay ku garab taagan tahay inteeda wanaagsan haniyad jabin
asxaabtayda igu xiran waxaan leeyahay qofkii aan ogeyn walaalka dhibka ku dhacay ama horey uusan channelkiisu subscribe ugu ahayn, channelkiisa hadda cusub uu samaystay waa channelka hadda ujeedaan Asad Xaajiyow 27. waxaa jira dad channel ka daba samaystay, marka asaga midka hadda uu samaystay kiisi hore waa tagsaday. kan cusub subscribe ha loo wada saaro, please and please subscribe ha loo wada saaro. Asad Xaajiyow 27 waa kaasa shaashada ka muuqda aa ujeedaan. waxaa idin leeyahay walaalahayow soo boqda walaalkiina, dhiirigeliya, comment u reeba, dhiirigeliya, subscribe usoo saara. insha allahu tabaarakallah, insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa walaalkay halka uu joogay iyo ka badanba inaynu gaarsiino insha allah. qof kastana ha u share gareeyo, yani ha share gareeyo barnaamijkan si walaalkeen subscribe u helo. adinkana please and please qofkii horey subscribe channelkiisa hore ugu ahaa oo hadda aan ka warqabinin channelkiisaan cusub, iyo qofkii aan horey uga warqabinba subscribe ha loo soo saaro. aad iyo aad baa umahadsantihiin asxaabteyda qaaliga. waxaa idin leeyahay weligiin qof qalbi saliima qof leh ahaada. cadownimada iyo xaasinimadu waa shay aada u xun, ilaahina waa laga magangalaa. ilaahay wixii dhib wadaha inaga magangeliyo dhammaanteenba aan isku duubnaano walaalkeena garabaan siino.